tabintan qodobada kale aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah Mareykanka waxaa laga dhaawacay 29 askari kadib duqeyn ka dhacday gudaha wadanka Sacuudiga. Tani waa fariin cad oo muujinaysa awoodda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran in aan wali la burburin isla markaana ay gacantooda gaari karayso meel kasta oo ka mid ah gobolka Bariga Dhexe. Maanta 4 dal oo Carbeed ayaa la weeraray, kuwaas oo haatan dareemaya in mushkilad weyn oo dagaalka ah ay wajahayaan. Israa'iilna hurdada ayaa loo diidan yahay caawa oo gantaalaha dowladda Iran ayaa meel kasta ku dhacaya iyadoo dhawaqa ka diga digniinta gantaalahuna uu meel kasta oo ka baxaya nidaamkaasi laga maqlayo caawa. Waxaa muuqanaya Israa'iil inay hoyan la'dahay xilli Trump uu dalbanaya in dagaalka xal degdeg loo helo. Dagaalku waxa uu galayaa bishii labaad. Maxaa iska bedelay istiraatiijiyada Mareykanka? Maxay tahay dowladda Iran waxyaabaha lagu bartay damaca Israa'iilna hadda xaggee gaaraya? Barnaamijka ayaan si gaar ah ugu falanqayn doonaa khiyaarta in nala socotay oo aan ku faaqadaya caawa. Qodobada kale oo aan idin hayo waxaa ka mid ah oo aan barnaamijka ku qaadaa dhigaya haddii uu Rabbi saamaxo. waxaa si isdaba joog ah dalalka qaliishku ay haatan u dareemayaan wajigabax markii dowladda Iran ay xaqiijisay dagaalada inay guulo badan ka gaarayaan. Bahrain, wadamo ay ka mid tahay Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya waxay helayaan fariin xoogan. Gantaalaha dowladda Iran ay adeegsanaysa caawa maxaad ka taqaanaa oo ashqaraar dhalinaya. Qodobadaasi xogtii ugu dambeysay ayaan rabaa inaan kula wadaago iyo waliba Israa'iil oo markan ay ku dhowdahay gacanta inay daagto. Wadahadal ayaa hadda soconaya baa la leeyahay la doonaya Xuutiga in loogu jawaabo. Jawaabta Israa'iil maxay noqon doontaa? Maxay bartilmaamaysan doonaan? Yaase laga yaabaa madaxda ay doonayaan inay calaamadeeyaan oo ay rabaan in ay ka qaarajiyaan kooxda Xuutiga ee wadanka Yemen. gantaalaha dowladda Iran ay tuurayso hadda jawaabahoodii si rasmi ah ayaa loo hayaa. Sacuudi Arabiya waxa uu la kulmayaa wajigabax ka duwan kii hore iyadoo Mohammed bin Salman uu horey u diidanaa dagaalka in la joojiyo sida ay ku warameen baqaar ka mid ah warbaahinta gobolka ee falanqeynaya dagaalka. 29 askari ayaa haatan wararku sheegayaan oo dowladda Mareykanka Sacuudiga u joogay in ay ku dhaawacmeen garoonka Amir Sultan iyadoo maantana magaalada Riyadh laga badbaadiyo dhowr ka mid ah sawaariiqda dowladda Iran ay halkaasi ku soo tuureen. wargeyska Ra'yul Yawm la yiraahdo waxa uu leeyahay warar soo baxaya ama laga helaya ilo warbaahineed oo caalami ah ayaa sheegaya in ugu yaraan 29 ka mid ah askarta Mareykanka lagu dhaawacay weerar isxigxigay oo Iran ku qaaday saldhigga Amir Sultan ee dalka Sacuudiga toddobaadkii la soo dhaafay. wakaaladda wararka ee Associated Press oo AP loo yaqaano ayaa sheegaysa iyadoo xiganaysa ilo xog ogaal ah in weerar gantaale iyo diyaarado aan duuliyo lahayn isugu jiray lagu beegsaday saldhiggaasi, taasi oo keentay dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray ciidamadii halkaasi ka howlgalayay. sida laga soo xigtay warbaahinta Iran ayaa jimcihii waxa ay ku warantay in saldhigga 6 gantaal lagu dhuftay oo baalistiga iyo 29 ka mid ah diyaaradaha iswada. taasi waxay keentay dhaawaca 15 ka mid ah askarta halka 5 kale xaaladooda lagu sheegay inay culus tahay oo ay aad u liidato. waxaana weerar kale oo dhacay lagu dhaawacay 14 ka mid ah askartii halkaasi ku sugnayd. wadarta dhaawacu waxay ka dhigaysaa buu leeyahay wargeyska 29 ka mid ah askarta Mareykanka. wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka ee The Wall Street Journal la yiraahdo ayaa isna tilmaamaya in 12 ka mid ah askarta Mareykanku ay ku dhaawacmeen weerar kale oo isla saldhiggaasi lagu qaaday iyadoo la tilmaamay in qaar ka mid ah askartu ay ku sugnaayeen dhismo si toos ah loo beegsaday, taasi oo keentay dhaawacyo culus oo xitaa qaarkood uu soo gaaray kuwa maanka ah oo iminka maandhayd lagu samaynayo oo la baxnaaninayo. ila xog ogaalo waxa ay sidoo kale xaqiijinayaan qaar ka mid ah askarta inay walaf qaadeen markii ay u dulqaadan waayeen awoodda gantaalaha dowladda Iran ay tuurayso. iluhu waxay sidoo kale xaqiijinayaan in weeraradaasi ay waxyeello gaarsiiyeen diyaaradaha shidaalka siiya kuwa dagaalka ee Mareykanka oo saldhiggaasi ku sugnaa ama diyaaradaha booyadaha hawada loo yaqaano.
khasaarahaasi waa sii kordhaya waxaana hadda la helayaa tirada rasmiga ah ee askarta Mareykanka ee dhaawacyada ay ka soo gaareen dagaaladan sii xoogaysanaya. warbaahinta caalamiga waxay tilmaamayaan in tirada guud ee Iiraan ay ka dhaawacday askarta Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe ay gaarayaan 300 oo askari iyo tira intaasi ka sii badan. meelaha ugu badan ee dhaawacyadu ay ka soo gaareenna waa dalka la yiraahdo Sacuudiga. wasaaradda gaashaandhigga Sacuudiga maanta waxa ay tilmaantay in gantaal baalistig ah iyo 3 diyaaradood oo iswada oo drone laga badbaadiyay hawada magaalada la yiraahdo Riyadh ee caasimadda dalka Sacuudiga ah. Maxamed bin Salmaan marka waxa uu dareemayaa weerarada dowladda Iiraan inay yihiin kuwa si rasmi ah xaggiisa ugu socda. dhinaca Iiraan ugu yaraan 5 qof ayaa warar ku sheegayaan caawa in la dilay 7 kalena ay dhaawac soo gaareen kadib markii diyaaradaha Mareykanku ay ka fuliyeen gobolka la yiraahdo Sanjaan sida ay sheegayso wakaaladda wararka ee Faris News Agency oo dhacdooyinkii ugu dambeeyay dowladda Iiraan wax ka qortay. iyadoo ay sidaasi tahay dalka Iiraan waxa uu weeraray ugu yaraan 4 wadan oo ka mid ah dalalka Bariga Dhexe ee Carabta oo kuwa qaliijka ay ku jiraan. Imaaraadka Carabta waxay caawa ku warameen in 5 qof ay ku dhaawacmeen magaalada Abu Dhabi kadib markii haraadiga gantaal la soo riday uu sababay dab ka kacay goobaha dhaqaalaha ma dhahayaan gantaal fakaday. Bahrain dab ayaa ka kacay xarun la beegsaday iyadoo seerida digniinta laga maqlay magaalooyin dhowr jeer oo kala duwan taas oo ka dhigan dowladda Iiraan inay weerar qaaday. Kuwait waxa la soo riday bay yiraahdeen 6 diyaaradood oo drone 24 saac ee la soo dhaafay. Sacuudigana waxa uu xaqiijiyay inuu burburiyay gantaale iyo diyaarado. 4taas wadan caawa gobolka Bariga Dhexe wadamadii Carabta ayay ku dhacayaan. wax yar uun kadib markii Mas'uud Pezeshkian madaxweynaha dowladda Iiraan uu ku dhawaaqay dagaalka inuu sii xoogaysan doono. Israa'iil qudheeda caawa ma alfana oo dhibaatooyin xoog la ayay la kulmaysaa. waxa ay tilmaamayaan in gantaale laga soo tuuray Iiraan iyo kuwa xisbiga ay soo tuureen ay la kulmayaan dhibaatooyin xoogan oo Israa'iil iminka soo gaaraya. aan eego wararka ugu dambeeya oo telefishinka Al Jazeera hadda banaanka keenay. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa ku dhawaaqaysa iyo baraha bulshadaba wararka lagu qorayo qaraxyo waaweyn oo xoogan ayaa laga maqlayaa galbeedka caasimadda Iiraan ee Tehran halkaas oo la leeyahay mawjado ka mid ah gantaale la soo tuuray ayaa ku dhacaya. telefishinka dowladda Iiraan waxa uu hadda qorayaa wax yar ka daqiiqad gantaale ayaa lagu dowladda Iiraan ay tuurtay ayaa ku wajahan dhinaca Israa'iil iyadoo digniintii Israa'iilna hadda ay baxayso dadka leeyahay goobaheena ku sugnaada. war telefishinka Al Jazeera uu qorayo uu ka xiganaya il ka mid ah saraakiisha booliiska Ciraaq waxa uu leeyahay sargaal sare oo Ciraaqiya ayaa la dilay 6 kalena waa la dhaawacay kadib markii xarun amni oo Mosul ku taalay ay ku dhaceen gantaale loo badinayo dhinaca Iiraan inay ka yimaadeen. sidoo kale wararka la helaya waxay tilmaamayaan in nidaamyada difaaca hawada ee dowladda Iiraan ay iska caabinayaan duqeymo Israa'iil ay ka sameynayaan halkaasi. afayeen oo hadlay ciidamada Israa'iil ayaa hadda waxa uu leeyahay waxa loo diyaar garoobay weerar celin ay la kulmayaan Xuutiyiinta goor dhow oo dagaalka ku soo biiray. maalmaha soo socda waxaynu burburin doonaa goobaha ay weerarada ka soo qaadaan buu leeyahay sargaalkaasi. hay'adda warbaahinta Israa'iilna waxay leedahay waxa hadda soconaya awaamiir la bixiyo oo ku aadan in loo jawaabo kooxda Xuutiga oo maanta gantaale cruise ku garaacday dhulka Falastiiniyiinta laga haysta sida ay qeexeenba. wararka kale ee gobolka Bariga Dhexe haddii aan sii eego baarlamaanka dowladda Iiraan ayaa la qorsheynayaa in uu ka fariisto dood xasaasi ah oo caalamku indhaha si weyn ugu hayo. mashruuca faafitaanka hubka nuclearka ee NPT la yiraahdo ayaa laga yaabaa dowladda Tehran in ay ku dhawaaqdo maalmaha soo socda inay isaga baxdo. tan oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan marmarsiyo Iiraan ay ku doonayso inay ku dhawaaqdo samaysashada ama haysashada nuclearka taasoo haddii ay dhacdo xaaladdu waa keenaya dagaalka gobolka Bariga Dhexe mid mushkiladiisu ay faafi karayso sida qubradu ay leeyihiin.
dowladda Iiraan ayaa si rasmi ah u guda gashay doodo culus oo ku saabsan suurtagalnimada inay isaga bixi karaan heshiiska ka hortagga faafidda hubka nuclear-ka ee NPT la yiraahdo kadib weeraro lagu bartilmaameedsaday xarumo nuclear ah ee inqilaafka sii kordhaya. wakaalada tasniim ee Iiraan ayaa sheegaysa doodan inay aad u xoogan tahay oo hadda baarlamankaba u gudubtay. waxay sidoo kale ka dhalatay markii dowladda Iiraan ay ka ganacsacday kana xanaaqday baa la yidhi hay-adda atomikada qaramada midoobay in aanay cambaarayn duqeymihii lagu sameeyay xarunta Natanz ee nuclear-ka iyo weliba Rafael Grossi in loo arko nin basaasaya xarumahaasi iyadoo Mareykanka iyo Israel ay kusoo gabanayaan kormeerka goobaha nuclear-ka ee dowladda Iiraan. warbixintu waxay sidoo kale tilmaamaysaa tani ma aha bay leedahay dowladda Iiraan in aan doonayno inaan samaysano hub nuclear laakiin waa xaqa ay ka tashiga waddanka ee madax banaanida nuclear-ka iyo weliba in dalkaasi uu noqdo mid isaga horumar ka gaari kara arrimahan. 1970 ayay dowladda Iiraan heshiiskaasi saxiixday oo in ka badan 180 dowladood ay qayb ka yihiin. qodobka 10aad ee heshiiska la saxiixay ayaa dhigaya in dowlad kasta ay xaq u yeelan karto inay ka baxdo heshiiska maadaama ujeedadu ay tahay in 3 bilood ka hor la ogeysiiyo qaramada midoobay gaar ahaan dhinaceeda arrimaha amniga ee caalamiga ama golaha ammaanka haddii si kale loo dhigo. maanta dagaalka waxa uu galayaa bil koowaad inay u go'day oo bishii labaad la guda geli doono xilli dowladda Iiraan ay u babac dhigtay dowladdii adduunka ugu xooga badnayd iyo nidaamka Israel oo lagu kabay oo ka mid ah dalka labaad sida la tilmaamo sida ku qoran majalada Global Firepower gobolkaasi ugu awoodda badan marka Turkiga laga yimaado in ay aad si xoogan u sameynayso. laakiin dowladda Mareykanka istiraatiijiyadii dagaalka waxay u eg tahay inay ku fashilmeen halka Israelna ay wadnaha farta ku hayso. dowladda Iiraan gantaleeda Khaybar Shakan, Camaad, Sijiil iyo weliba Khaybar Shah kan la yiraahdo ee afar loo yaqaano ayaa waxay yihiin gantaalaha ugu awoodda badan ee hadda ay adeegsanayso dowladda Iiraan.